waxaa socda dhismaha masjid jaamaca degmada Yagoori kaasoo dib loo dhisayo qaybtii shubka uu masaajidku ku istaagayay. Masaajidka ayaa waxa uu ka koobnaan doonaa qaybo fara badan oo dadka muslimiinta ay ku cibaadaystaan. Dhaqaalaha lagu dhisayo masaajidkan ayaa laga doonayaa dadka muxsiniinta ah ee Soomaaliyeed inay bixiyaan. Injineer Maxamed Cali Jidaal ayaa waxa uu ku qiimeeyay lacag gaaraysa $200,000. culimada diinka iyo gudida masaajidka gacanta ku haysa ayaa warbaahinta uga waramay dhaqaalaha ay hayaan, iyagoona ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta iyo dadka jecel sadaqada inay la baxaan sidii loo dhisi lahaa guriga Ilaahay. ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay Sheekh Maxamuud Salaad Warsame oo faahfaahin ka bixiyay iyo waxyaabaha uu u baahan yahay masaajidku inuu dhammaystirmo. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك كان أن تاجنا هاي ودقمة يجوري وحان صعدة مستشامعي دقمة يجوري ومدة اسمه صوب لونا oo dhismayaashii qaybihii ugu waaweynaa ay saaka bilaabatay shubabkii godadka kaabadihii salkoodii la shubayo culumadii gobolka intii waqti u heshayna ay xaadir ku tahay isla ogeyn markii masaajidka la dumiyey waxaa lagu qiimeeyey qiimeyntiisii $200,000 laba qiimood buu ahaayo tii hore $132 ay ahayd. haddana markii la eegay dib loo eegay injineero badan isugu tageen qiimeyntii ugu dambeysay waxay noqotay $200,000 u dambeysay aanu qaadanay waa injineer Maxamed Cali Jidaal shirkadiisa ayaa qiimeysay marka taas ayaanu hadda ku soconaynaa. masaajidka cabirkiisu in masaajid aad u weyn weeye. waxaan marka rabnaa dadka muxsiniinta ah ahlu sadaqada ah ee walaalaha ah gobol kasta ha u dhasheen inay nagala qayb qaataan masaajidka dhismihiisa iyo maartay oo bilow ah oo aad arkaysaan kaabadihii salkoodii baa maanta la shubayaa oo maartay aan maanta dadka muslimiinta uga waramay qiimaha sadaqada in masaajidka lagu bixiyo ay leedahay Sheekh Aadan Wali Cabdi Xuseen oo ku booriyay dadku inay sadaqada ku darsadaan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. walaalaha muslimiinta ah waxaan ugu baaqaynaa baaq dhaqaale bixineed awqaaf ama waqaf masjid Yagoori laga dhisayo. masjidkaas oo aad aragtaan oo hadda kaabadihii la shubayo horeyna sawiradiisa aan u soo gudbinay lacagta lagu qiimeeyay $200,000 qiimeyntii u dambeysay masjidka oo shub ah oo la rabo inay sadxiga la saaro wax kale dusha la sii saaro. masjidkaas oo qayb dumar iyo meelihiisii maraafiqda ahaa weysada iyo meeshii imaamku seexanayay iyo in ay ku jiraan waxaan leenahay maktabadiisii walaalaha muslimiinta ah waxaan ugu baaqaynaa inay baaqa dhaqaale bixinta masjidka Yagoori ay kaga qayb qaataan. qofkii masjid dhisan rasuulku calayhi salaatu wasalaam وكيل من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. قفكي مسجد إلهي درتي أردسا إلهي قريبو جنة وقردسا. أحاديث قاركود رسولك وحكو شيئا ياشين برتن قالوا قال لي هذا ماشي بيت كذا دقاته وميل آن لبدا عقود ميل دقا كبضنين ماشي رسولك عليه الصلاة والسلام وأن سجودي وحكا لبدا هذا عقود ميل اسكتاكتي بول كيدو كموين شمبرتاس لبدا عقود انت اللي سكتاكو ليس صاري وليبه marka nabigu wuxuu leeyahay qofkii yaani ilaahay dartii buu ula jeeday meel lagu tukan karo ma baaha meesha shimbirta buulkeedu laakiin waxa weeye waa uu tusaale rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo dhaweynayo qofkii ilaahay dartii ula jeeda inta yar oo kale haba dhisi kari waaye inta ula niyooda ilaahay dartii ilaahayna guri jannada uga dhisayo. marka waxaan leenahay guriga jannada gurigiini jannada soo dhista walaalaha muslimiinta ah masjidka wax ku taageera wax lacaga oo masjidka markii la bilaabayayna $30,000 oo walaalaha muslimiinta ka yimi ayaa masjidka lagu bilaabay lacag kale looma hayo $170,000 baa hadda masjidka ka dhiman. waxaa loo baaqay qof kasta wuxuu awoodi karayo inuu ku darsado masaajidkan dhismihiisu ka socdo
degmada Yagoori. Sheekh Axmed Maxamed Saleebaan oo goobta isaguna ka hadlay ayaa ka sheekeeyay masaajidka iyo qiimaha uu bulshada ugu fadhiyo iyo in dadka degmada Yagoori loo dhiso masaajidkaasi. maanta ay taariikhdu tahay 16ka bisha Rabiic Thani 1440 hijriga kuna beegan 23ka bisha December 2018 waxaanu taaganahay goobta masaajidka jaamica magaalada Yagoori laga dhisayo oo seeskii hadda la shubayo kaabadaha hoostoodii la shubayo maanta la bilaabay sida la idin sheegayna masaajidkaas oo aan kharash badan loo haynin aan adkaynayaa intii culimadu sheegtay waa masaajidkan in Ilaahay loogu dhawaado oo ajar laga raadiyo oo sadaqa jaariye ah laga samaysto waa laga tagayaa adduunka waa la dhimanayaa adoo qabrigaaga ku jira oo dhintay ayaa amalkaaga soconaya dad wax khayra hadaad ka tagto oo nabiga kaleey salaatu salaam bini'aadamku markuu dhinto saddex waxyaabood ayaa uu sheegay oo qofka ka hadhaya sadaqatin jaariya kamid ahayd sadaqa socota sadaqada jaariyada waxa ugu ajar badan waa masaajid lagu tukanayo inta masaajidkaas uu jiro oo lagu tukanayo lagu cibaadaysanayo dadka ku cibaadaysta ajarka ay helaan mid la aqbal lagu qoraya ama naftaada waqaf ama waalidka oo dhintay aad jeceshahay waqaf waxaan leenahay waqafkaas laga faa'iideysto aakhiraha loo shaqeysto adduunka waa laga tagayaa janna lagu galayaa waa sadaqa jaariya xasanaad inta ku cibaadaysata inta ay helaan oo ajra baa idin socda cid kasta oo maqasha codka iyaga waxaan leenahay masaajidkaas ha lagu tabaruco si degdeg ah lacag loogu soo ururiyo Ilaahay loogu dhawaado waalidiintiina iyo naftiina waa u waqafa Ilaahay agtiisa ayaad ka helaysaan wax alla wixii qofku bixiyo iyadoo oo 10 jeer loo laalaabay ugu yaraan la 700 ila ma sha Allah wuu Ilaahay agtiisa ka helayaa cid kasta oo ka qayb qaadata waanu ducaynaynaa Ilaahay ha barakeeyo caruurtooda iyo cimrigooda iyo amalkooda iyo adduunkooda iyo aakhiradooda aafa adduun iyo mid aakhiraba Ilaahay ka badbaadiyo dadkii hore uga qayb qaatayna waa u mahad celinaynaa sidaas oo kale aan ugu ducaynaynaa waxaan leeyahay koonada iyo meelaha wax loogu hagaajinayna waa la idin sheegayaa horena dadka qaarkood way ula socdeen waxaan leeyahay masaajidkaas aad iyo muhiim ah Muuse Maxamed Axmed oo kamid ah gudida dhaqaalaha ayaa soo bandhigay lacag $2,000 oo ay soo dirtay Khadiija Maxamed Geelle waxaana loo duceeyay dad dhaqaalaha tani gaaraya $30,000 masaajidka ku darsaday kuwaas oo kala jooga Sacuudiga, Mareykanka iyo Yurub iyo dadka gudaha jooga. waxaan doonayaa kaliya inaan ku daro dad badan anigoo ah Muuse Maxamed Axmed kana mid ah dadka tabarucaadka iyo dhismaha masaajidka ee gudida kamid ah waxa la soo wakiishay gabadha la yiraahdo Xaajiyada Khadiija Maxamed Geelle $2,000 oo kun iyadoo ay bixisay ku waqaftay masaajidka kun ay ka soo urursay gabdho muxsiniin ah samafalayaal ah iyadana isxilqaantay dadka ka soo urursay masaajidka ee tabarucaadkiisa waxaan leenahay qof walba waxa uu la niyooday in Ilaahay siiyo sida culimadu ay sheegtay Ilaahayna ajar iyo xasanaad badan uu ka siiyo wixii kale ee dadka muslimiinta ee samafalayaasha ay baxsanayaan ay ku soo hayaan qof walba wuxuu ka cabanayo in Ilaahay uu la niyooday uu bixiyay uu Ilaahay siiyo sidaad arkaysaan waxa ay ugu ballantay in la siiyo masaajidka loo dhigo cagtiina waa taas oo aad aragtaan masaajidka maanta la shubayaa lacagtan aad aragtaan aan gacanta ku hayno hadana lagu wareejiyay waa lacagtii ay soo dirtay waxay ururisay iyo waxa iyadu bixisayba Khadiija Maxamed Geelle ee halka looga duceeyay waxaan gudiga soo gaarsiiyay Muuse Maxamed Axmed waxa jira dad fara badan oo maal sadaqaystay oo qaar lacag badan oo 10 ka badan sadaqaystay qaar 10 ka yar sadaqaystay qaar ku sadaqaystay qaar sibir bixiyay qaar $1 sadaqaystay ilaa $1 ilaa 30,000 ilaa 25,000 ayaa dad muslimiin ah
oo cid walba lihi ay masaajid ku sadaqaysteen oo na soo gaarsiiyeen caalamka kala jooga kuwa Sacuudiga jooga iyo kuwa Mareykanka jooga kuwa Yurub jooga kuwa Afrika jooga kuwa Soomaaliya jooga dad sibir bixiyay baa jiro far badan oo kala sibir badan iyagu qudhoodu dadkaas oo dhan waa u ducaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigooda iyo kiwaadkood baa Allah dhaafo Ilaahay miisaanka xasanaadka Allah ugu daro Ilaahay sadaqa jaariyaha uga dhigo wixii dhibaatay ka baqayaan Allah ka faydo wixii khayra iyo wanaaga ay rajaynayaan gunaanadkii waxaa bulshada muslimiinta ee Soomaaliyeed baaq u diray sheekha caalimka Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed wuxuuna fariintan sheekhu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay in dadka muslimiintu ay masaajidada dhistaan oo sheegayna masaajidkan qabyada ah ismiis bilowday halka ka daawareysaan oo ah musjaamici magaalada Igoori ayaa idin sugaya ummada islaamka sugaya in masaajidka fadhiga loo kaco masaajiduna waa meelaha khayrka iyo sadaqada iyo infaaqa lagu bixiyo meelaha qiimaha badan weeyaan wa rasuulku sallallahu alayhi wasallam alayhi man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala darti masaajid u dhisa ilaahayna maalinta qiyaamaha jannada ayuu uga dhisaa guri uga dhisaa weyn oo qiimo leh oo dahab ka samaysan oo fidda ka samaysan waxaa loo baahay marka inaynu fadhiga oo kacno si aynu u helno ajarka weyn iyo xasanaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegay dadka ka shaqeeya dhismaha masaajidda إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين بإذنه سبحانه وتعالى يعني كوا عميران مساجدها تعمير وحكمت اسمها وليسيو إلا هاجينيو وحيكوا سأجر وين بإله كله سبحانه وتعالى وكوا إله هنونيي سي هنونك يقيمة وشان مساجدك الله كرة مساجدكو وقرق إلهي مساجدكو وماشي مصلين تذكر تكرر كسوريين مساجدكو وماشي علمك يدين تي حلقات كعلمك نقول جاي مساجدكو وماشي ذكر باهن مساكين الله عاونيو مساجدكو وماشي مساجد غير سيو مركب عويان وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه مساجده ومحمد أمته كهذه الشيء مركب قيمها بدل مساجد كلية أشكال بس كشكل مايو وعن مرة هذه مصلحات ومرة إسلام كامل استوجبته أنا ما رأيت وسوق شيء لنا إن الحلو يتكسر على المساجد وحكومات الإسلام إلى وعكبرنا سبحانه وتعالى إنه عندك صوح كوب حصتا ونغالا أورطا إلهي سبحانه وتعالى وحك خير له إنه بدلوه مساجد masaajidkan ayaa waxa uu noqonayaa haddii la dhammaystiro mid si weyn ay dadku ugu cibaadaysan doonaan iyadoo mustajaamaca degmada Igoorina uu haatan u baahan yahay dhaqaale $200,000 lacagta ay culimada iyo guddida u hayaan ayaa waxay tahay $30,000 dadka Soomaaliyeed ayaa si weyn uga qayb qaata dhisidda goobaha cibaadada ee lagu tukado sidii ay ugu heli lahaayeen ajar iyo xasanaad